waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada Jigjiga sicir barar gundaha goostay taasoo keentay in suuqyadii badeecadaha albaabada la isugu laabo iyadoo ayna muuqan wax ka qabasho degdeg ah. Dhanka kale, isku beddelka lacagaha qalaad ayaa sabab u ah sicir bararka maadaama aanu jirin ajende looga hortagayo. dadweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa la daala dhacaya sicir bararkani ku kooban kaliya deegaankooda. kulan uu la yeeshay maamulka madaxweyne Cagjar bangiyada ka jira deegaanka Soomaalida, kulankan oo loogu hogaaminayay wasiirka xafiiska madaxweynaha Dr. Xuseen Xaashi Qaasim sida loogu wada xaajoon lahaa sicir bararka naafiyay deegaanka. wasiirka hadlayana waa kan iyo hay'adaha kale ee maaliyadda sida kuwa microfinance-yada loo yaqaano. shirkaas waxaan si qoto dheer uga wada hadalnay waxyaabaha nala gudbano in laga sameeyo sicir bararka. waxaan rabnaa shacabka inuu ogaado kow sicir bararka waxyaabo badan baa keena. waxyaabahaas qaarkood waa waxyaabo aynu heer dal wax kaga qaban karno, qaarna waa waxyaabaha heer deegaan aynu ka qaban karno. waxyaabaha qaarkoodna waa wax ku xidhan maciishada qaaliyooday ee dunida. maciishadeeda waxaa qaliyay cudurka covid-ku markuu dhacay, caabuqaasi dhacay, warshado badan baa xidhmay, transportation markabyadii cuntada keenayay baa qaaliyoobay. tusaale ahaan containerkii $4,000 lagu keenayay China ka imanayay maanta waxaa lagu qiyaasaa inuu marayo $12,000. taas waxay kordhisay maciishadii, qiimihii maciishada ay kordhisay. wax soo saarkiina wuu yaraaday meelo badan. wadamo badan oo China iyo Turkey iyo Indonesia ay kamid yihiinna xataa iyaga wax soo saaraya maadaama adduunkii arinta damaanqaadka cuntada ay noqotay arin culus, dagaalana ay ka jiraan meelaha qaarkood saameynaya noloshii bulshooyinka adduunka oo dhan. wadamada qaarkood waxay xajisanayaan wax soo saarkii ay soo saarayeen meeshii ay ka suuqyeen lahaayeen ayay saliida iyo sokorta iyo bariiska iyo waxyaabo badan oo dadkeena ay isticmaalaan ayay xajisanayaan. waana arin sida cad loo ogyahay inay saa u jirto way. dagaalka Ukraine iyo Russia isna dhibaato badan buu inoo keenay. waxaa la qiyaasayaa in wadamadan Afrikada saxaraha ka hooseysa in 40% wax ku dhow qiyaastii ganacsigooda gaar ahaan marka la eego cuntooyinkan daruuriga ah inay ku xidhnaayeen labada wadanna dagaal ka jiray dartood wax soo saarkeena ugu yaraaday. waxay soo saarayeen iyaga ayaa iyaguna xajisanaya. waxyaabahaas waa wax la xidhiidha maciishada adduunka oo kor u kacday iyo qiimaha shidaalka laftiisa oo isna kor u kacay oo saameyn ku leh transportation-kii iyo raashinkii iyo waxyaabihii daruuriga ah ka imanaya adduunka isaga gooshay. taas waa wax marka adduunka aan la qabno. xalkeeduna waa in aadan ku tiirsanan adduunka aad wax soo saarato weeyaan, oo aadan markabka bariiska wada soo sugin oo kasaliida wada aan sugin ku xiran duruufo adiga aan gacanta ku haynin. taas marka waa sababta loo bilaabay heer deegaan bal in wax soo saarkeena aan sanadkan kordhino. barnaamijka dalag iyo daryeelna sababta loo dahfuray sababtaas ay ahayd. waxyaabaha kale waa wax heer dal ku xiran, waana inta badan siyaasadaha lacagaha iyo sarifka iyo lacagta la daabacayo suuqa lacagta dollarka la soo gelinayo in la jaangooyo. siyaasadahaas waxa iska leh waa dawladda dhexe iyo central bankiga weeyaan. isaga ayaa shuruucda bangiyada gacanta ku haya oo hirgeliya oo ku dabagala bangiyada in si loo baahnaa ay u dhaqmaan.